waa laga yaabaa inaad isweydiiso oo maskaxdaada aad ka shaqaysiiso baasboorkan la gubayo talo waa wadankee inaad tiraahdo waa laga yaabaa laakiin arrinta kale oo kasii mucjisada badan oo aan raba inaan kula wadaago meeshan aad arkayso waxa kaaga muuqda waa calaamadii Kirishtanka iyo kitaabkii Qur'aanka oo kor loo wada hayo waliba lagu salinayo nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam arrintan waxa ay qabsatay dunida carabta oo idil laakiin waxa ka dambeeya oo arrintaas sababay baan rabaa inaan kula wadaago dhigtaada iyo amaahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه السلام يا شعب كسوماليات أو ملك استو الدنيا أكيد جوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يا أنغو النبض يا عافمد قبنا إن ربنا أمركله دب إنه كل شيء السجع أي محدثي وسجناتي حدي أحلى نبض كوسي حتى ساكن نبض أكوسو توستي وقت جن النبض أن نقول سو جارتي أنت جمعها كرو تاكتو ربنا وجمع علي عافماتك وكسيي نبينا عليه الصلاة والسلام aan ku wada salino de channelkan adiga ayaa iska leh subscribe noo saar muuqaalkana like garay wixii tale tusaalaana qaybta commentiga nagula wadaag aadna waa u mahadsantahay inta markii laga soo gudbo walaalayaal sida hordhaca barnaamijkayga aan ku soo aragteen aan idinna ballan qaaday oo muuqaalkan kii ka horeeyay aan idin kugu ballan qaaday waxa dunida carabta rogay oo dunida inteeda kale dadka ku nool ay aad iyo aad maskaxdooda uga daadagi laadahay waa muuqaaladan idin muuqda gabdhahan halkan idinkaga muuqda dhammaantood waxay dab wada qabadsiiyeen baasaboorkii iyo sharciyadii ay ka haysteen waddanka Sweden ahay waa idinka arkayo muuqaaladan idin muuqda waa wada arkaysaan gabdhahan waa gabdho ka soo jeeda wadamada Carabeed qaarkood qaarna waxay u dhasheen waddanka Ciraaq oo ninkii kitaabka Qur'aanka ahaa gubay bay macnaha hay wadaag yihiin isku dab bay ka soo jeedaan soo waxa garteen maaha gabdhahan ma asturno markii si loo fiiriyo ma xijaabna laakiin waxa gubaya maxaa waaye waxa gubayo waa kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ee wadamada reer galbeedka qaarkood gaar ahaan wadamada Scandinavianku ay caado ka dhigteen gubistiisa ayagoo markaasi uga qiildayaya inay tahay xurriyatul qawl ayagoo uga qiildayayo ayay caadaysteen in kitaabka Qur'aanka ah qofkii yiraahdo waan gubaya markiiba maxkamaddu ay warqad ogolaansho siiso haddaba arinta kale oo la yaab kale oo aan rabay inaad idin sheego waxa waaye muuqaal runtii wadamada carabta dhaqankooda iyo habmaamuuskooda marnaba aanan laga filaneyn laakiin hadda dhacay oo dadku ay ku jahwareereen habmaamuuska iyo qaabka wax u dhaceen ayaan rabaa inaan idin la wadaago bal waa isku dambeynaynaay muuqaalkan ila daawada barnaamijkii kordhi dhaqaalahaaga muddo 3 bilood gudahooda bisha 7 ayuu ka ekaa balse manager Saacidi Xirsi yani umada Soomaaliyeed baahi badan ay u qabaan ee aragtay waxay sameysay inay ku darto muddadii ilaa iyo bishii 9aad waaw waa sax ma sha Allah aniga kordhiyay anigoo manager Saacidi Xirsi ayaa ku darnay markaan aragnay baahida loo qabo ayaa aad u baaxad weyn in barnaamijkii bishii 7 ku ekaa hadana dib ugu soo darnay 2 bilood aan ku darnay oo ah bisha 7 8 iyo 9 aan ku darnay marka hadii aad rajaynaysid inaad nagu soo biirto oo u baahan tahay in laga caawiyo teamka kobci dhaqaalahaaga muddo ka yar 3 bilood waxaan ku ballan qaadaynaa 5 qof oo furaha ganacsiga inaan ku sameeyno hadii aad nagu soo biirto 8 iyo 9 barnaamijkan wuxuu soconi doonaa 8 iyo 9 kaliya waxa loogu daray oo loo kordhiyay wax kale ma ahan baahida loo qabo ayaa aad u baaxad weynaatay saasa markaan ugu darnaa waliba yani u daneynayna bulshadeena ma sha Allah tabarakallah marka ka faa'iideyso kobci dhaqaalahaaga muddo ka yar 3 bilood waaw muddo ka yar 3 bilood ayaa waxa ku kordhinaysaa dhaqaalahaaga soo wac lambarka shaashada ku qoran manager Saacidi Xirsi ayada ayaa ku siin doonto wax alle iyo wixii faahfaahin السلام عليكم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هذا من أخوكم مسيحي ابن عمكم صديقكم عدوكم اللي تريدوا تعتبروني اعتبروني احنا بالنسبة لنا ninkan idin muuqdo ma aha muslim waxa uu gacanta ku hayaa waa calaamada Kirishtanka iyo kitaabka Qur'aanka ayuu gacanta ku wada hayaa walow dadka meeshan isugu yimid la leeyahay waa shiico oo waa qolyahan shiiciyiinta la leeyahay waddanka Ciraaqna runtii aad bay ugu badan yihiin shiicadu
maadaama marka la leeyahay dadka halkan isugu yimid waa shiico ninka halkaa taagan ee kitaabka qur'aanka ah kor u haya calaamadda kirishtanka iyo kitaabka qur'aanka ah saa intuu isugu lamaaniyey kor ugu qaaday kor u hayo waxa uu raaligelin ka bixinayaa dulligii caadaystay in kitaabka qur'aanka kariimka ah uu gubo taasoo runtii ninkan odayga ah uu ku muujinayo in arrintaa aanay la qabin haddii ay yihiin dadka kirishtanka ah ama diinta muslimka aanan haysan in aysan arrintaa la qabin oo ninkaa gooni ay ku tahay arrintaas marka waxaa keenaya dadka aan muslimiinta ahayn oo runtii culaysyo badan uu ka soo saarmay wadamada islaamka ayadoo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka ciraaq weli ay ku adkaysanayso interpol ay u gudbisay wasaaradaha kale ee arrimaha dibadda ee Suudan iyo dowladana ay ka codsanayso ninka in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo dhiibo maadaama uu horay uga galay dambiye kala duwan dalka Ciraaq dhibaatooyin ba'an u geystay qaar kamida shacabka reer Ciraaq sheekadu ma dhawe bal muuqaalka ila si daawada هذا اللي ليس ما يمثلنا ولا يمثل أي مسيحي بالعالم ninkaasu qof uu matalo ama diin muslim ama wax kale oo quraafaad ah oo ninkaasu uu ku matalo haba yaraatee ee ma jirto annagu haddii aanan muslimiin ahayn marnaba raalli kama nihin in kitaabka qur'aanka ah la gubo ninkaana kuma raacsanin ayuu hadalkiisa u dhigayaa ninka calaamadda kirishtanka kitaabka qur'aanka ee musharrafka ah kor u haya احنا كلنا اخوه annagu waxaan nahay dad walaalo ah hal arrin baa idiin sheegaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay mu'miniintu inay yihiin dad walaalo ah laakiin wadamada carabta markaad u eegto dhaqamo gooni ah bay leeyihiin oo qofkan u dhashay waddanka Ciraaq tusaale yar baan ku tusinayaa qofka Ciraaqiga ah ee aan muslimka ahayn iyo qofka Ciraaqiga ah ee muslimka ah markii tusaale ahaan Cabdullaahi loo barbar dhigo Cabdullaahi inuu Ciraaq jooga ka soo qaad muslimna aan ahay alxamdulillah markii la isbarbar dhigo ninka muslimka ee Ciraaq jooga iyo ninka Soomaaliga ee muslimka ee Ciraaq jooga markii la isbarbar dhigo waxa ay walaashanayaan qofka Ciraaqiga ee aan muslimka ahayn wadamada carabtuna waxyaalaha ugu badan yihiin waxa ay ku leeyihiin aniga adigu muslimnimadan wadaagnaa laakiin ninka wadan iyo dal baan wadaagnaa saas daraadeed marka wadamada carabta dadka muslimiinta aanan ahayn ee ku nool ama u dhashay wadamadaas ama Masar ha noqoto ama Syria ha noqoto ama Ciraaq ha noqoto ama Lebanon ha noqoto wadamada dadka aan muslimiinta ahayn ay u dhasheen oo laakiin wadamo carbeed ah markasta qofkaas carabka ah waxa uu fiiriyaa carabnimada qofkan iyo deegaanka uu ka soo jeedo ayuu fiiriyaa uma fiiriyo dhanka muslimnimada saadaradeed ayuu ninkan waxa uu leeyahay haddii aan nahay dad walaalo ah ayuu taagay ninkan soo marka dad badan baa laga yaabaa inay yiraahdaan war ninkan waa gaal oo muslim ma aha ninkan waa muslime goormee muslim iyo gaalo walaaloobeen qof baa laga yaabaa inuu su'aasha isweydiiyo laakiin dadka carabtu dhanka ma fiiriyaane waxay fiiriyaan deegaanka iyo dalka sinjiyada qofka fiiriyaane diinta qofka ma fiiriyaan كلنا عايشين بالعراق اخوه واحبه وما عندنا اي مشكله ويا اي عبد بشر انسان annagu dhammaanteen waxaan ku wada noolahay waddanka Ciraaq walaalana waa nahay bukuley walaalana waa nahay marka haddii aad arrintaa aragto ha la yaabin waa dhaqan ka jira wadamada carabta وهذا ما يمثلنا يمثل روحه بس احنا كمسيحيين نجي نعتذر من عندكم وحقكم على راسنا عمي واحنا اسفين على الشغله اللي ميته وهذا سواها قسما بالله haddii aan nahay dadka masiixiyiinta ah ninkaasu anaga nama metelo qof uu metelana ma laha naftiisa kaliya ayuu metelaa waxaana halkaa u nimid inaan idinka raali gelino dhibaatadii qalbiyadiina soo gaartay iyo sida aadka ah oo aad uga xumaateen falalka qaabdarada ah ee ninkaasi uu ku kacay wuxuu ku leeyahay ilaah baan ku dhaartay anagu waxaan nahay dad walaalo ah kama wada xagga diinta wuxuu ka wada xagga deegaanka iyo wadanka dadkan carabtu wadanka waa ka dhintaan kitaabkoona inay ka qaadan bay ahayd kolba kitaabkoona inay ka qaadan bay ahayd si kastaba arintaa waxay muujinaysaa dadkan carabta ay inta badan wadamadoodii ka tahriibay ee wadamada kale ee reer galbeedka isu dhiibay markii sharciyadu ay ku adkaadeen oo xaaladdu ku cakrantay in ay cadayma ka dhigtaan oo marmarsiyo ay ka dhigtaan in diinta ay caayaan
kitaabada ay gubaan diinta islaamka wax ka sheegaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay aflagaadeeyaan kitaabada ay gubaan ayagoo markaasi luqmad uga raadinaya gaalada isla markaasina ka rajeynaya in falalkaa ay sameeyeen darteed sharci lagu siiyo laakiin dowladuhu arrintaa way fahmeenoo hore idinkugu sheego waxaase horey dowladuhu ugu soo daaleen waxaana halkaas ka cad runtii habdhaqankooda iyo qaabka ay wax u sameynayaan iyo sida sahlan oo markiiba ay oola soo boodayaan hadda ninkan ciraaqiga ah markuu kitaabka qur-aanka gubayey oo wadanka uu ku gubay isla markiiba waxaa dhacday wadankan nin u dhashay oo isagana kitaabkii gubay inkastoo markii dambe la yidhi raaligelin buu bixiyey oo uu ka toobad keena la yidhi isagana uu sameeyey taa marka waxay caddeen u tahay nin kasta meesha uu isleeyahay amay quutulyoon kaa soo gashaa ama baahiyadaada ay ku dabooshaa ama sharci ka heshaa ama gaaladan weji ka heshaa ama asaan ka heshaa uu isleeyahay buu madax la gelaya kama fikirayo maxaa ka imaan doona kama fikirayo xaaladdu noocay noqon doonta kama fikirayo saasay marka marmarsiyo intay oga dhigtaan ay kitaabada iyo ay ugu wareegayaan waxyaale ay dadku horey uga soo daaleen kitaab hal kitaaboo la gubayna muslimiinta iyo islaamka waxba u noqon maayaan bal diintan way uun sii horumari doontaa waa la sii jeclaan doonaa jacayl unbay nagu abuuraysaa maahane xumaan kale iyo murugo nagu abuuri mayso diintan waa diin ilaahay soo degsaday isaga ayaa ilaashanaya waardiye kale uma baahna weshmaana uma baahna cid waardiyeysa uma baahna uu cadow laga waardiyeynayo cid looga baahan yahay waardiye ma jirto ilaahay subxaana watacaala diintan isagaa soo degsaday isagaana ilaashanaya inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu la xaafiduun marka ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa soo degsaday isagaana ilaashanayo marka mid xunoo meelaha intuu soo boday kitaab gubay mise bilines oo kitaabaa yaala caqliyan waxaa laga yaabaa inuu iska dhaadhiciyo kitaabku inuu halkaa xaba yahay keliya uu gubay maba ogaba in guryaha ay nooga buuxaan oo ay noo yaalaan jacaylka kitaabkuna aad iyo aad qulubtanada ugu weynaaday laakiin wuxuu hadda ogaaday kana shalaysan yahay in arintan uu sameeyey qalad weyn uu ku galay shalaytuuna taagan yahay laakiin madaxuu isleeyahay boorka ka cesho annaga waa fahanaye intii fahantay allahu akbar baan leenahay aad baa u mahadsantihiin walaalayaal muuqaalka ayaan doonayay inaan idinla wadaago oo aan idin soo gudbiyo inta aan muuqaalada xiga isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu